السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada daawadayaasheena qiimaha badan ee inagu xiran kanaalkeena umada ee YouTube. Hadaad ku cusub tahay daawade nagu soo biir adigoo taabanaya calaamadda subscribe kadibna furo gambaleelka si ay ku soo gaaraan muuqaalada waxtarka leh ee lagu baahiyay kanaalka. Maasanid muuqaalkeena maantana waa qisadani waa mid aad u xanuun badan waxayna dhaxmartay hooyo iyo wiilkeeda. U soo dhawaada qisadeena maanta. wiilkan faqiirka ah waxa uu la nool yahay hooyadiis. waxa uu mar walba fuuli jiray gaariga hooyadiis ay ku shaqeysato. wiilkii ayaa naftiisa ku yiri hooyadeeda mar walba been ayay ii sheegtaa. markaas ayuu hooyadiisa weydiiyay, hooyo ma daashay? hooyadii waxay tiri, dabcan hooyo ma daalin, hooyadaadu waa ay adag tahay, yacni waa qawi. wiilkii ayaa naftiisa ku yiri hooyadii waa ay beenisay inay daashay, laakiin waa ay daalan tahay. hooyadayda waa ay beenin jirtay inaysan ahayn mid baahan. hooyo ma baahan tahay? hooyo aan isla cunno. hooyadiis waxa ay ku tiri, maya hooyo, aniga ma baahani, adiga iyo cun wiilkayga sharafo. run ahaantii hooyadan wax ma cunin oo waa ay baahan tahay, laakiin waxa iyada aad ugu muhiimsan inuu wiilkeeda wax u cuno. wiilkii waxa uu yiri, hooyo weligaaga ma baahanin. wiilkii waxa uu dhahay waxa ay hooyadeeda ii ballan qaaday inay dhinacayga joogi doonto mar walba iyo inaan weligayga cabsan doonin. laakiin marka aan habeenkii soo tooso kama helo dhinacayga. hase yeeshee wiilka ma ogo in ay hooyadii habeenkii u baxdo si ay u soo aruuriso waxyaabaha macdanta iyo balaastiga ah si ay u iibso lacagtana ay u aruursato uguna daryeesho cunugeeda. wiilkii waxa uu yiri hooyadii wax walba waa ay beenisaa, laakiin marka laga soo reebo hal shay ay weligeeda aysan beeninin. hooyadeeda aad bay ii jeceshahay, mar walbana waxay ii dhahdaa, hooyo aad baan kuu jeclahay. anina waxaan dhahaa, waan ku jeclahay hooyo sidoo kale. daneeya hooyooyinkiina, daneeya waalidiintiina, daneeya ehelkiina, maxaa yeelay goor walba waxay ku rajeynayaan kheyr dhammaantiis. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. wuu faray eebaha inaydan caabudin asiga mooye iyo inaad u samafashaan labadiina waalid samafalid. hadduu ku gaadho agtaada weyni midkood ama labadood, ha ku dhihin uf, hana canaananin, yacni ha guulguulin, kuna dheh hadal fiican. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. una raarici, yacni u jilci garabkaaga naxariiseed, dhehna eebo ugu naxariiso sidee ii koriyeen anoo yar. qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, aljannatu taxta aqdaami lummahaat. rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi, jannada waxay ku hoos jirtaa cagaha hooyooyinka. hadba daawade, haddii ay waalidiintaada kuu nool yihiin u baari fal waalidiintaada. hadduu uu midkood kaa dhintay u duceey waalidkaaga. hadba daawade ha ka hilmaamin qisadeena maanta haddii ku cajib gelisay inaad laag saartid oona la sii wadaagtid asxaabtaada.
waxaan mar labaad xasuusinayaa asxaabta weli inagu soo biirin inay inagu soo biirto oo kanaalka ay rukuntaan. waad mahadsantihiin daawadayaasheena qiimaha badan ee soo gaaray bardhamaadka muuqaalkeena maanta. waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaano Allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.